munaasabada ka dhacday tiyaatarka qaranka ayuu hadalkani ka sheegay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Maadi Maxamed Guuleed Qadar isagoona u jawaabay madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto taasoo ku aadneed in Soomaaliya ay kala macaamili doonaan hoggaan cusub ay soo saaraan. inaan u jawaabo fursadan uga faa'iideysto madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto oo maalin dhaweyd ay wada ogeydeen in uu yiri Soomaaliya waxaanu kala macaamilaynaa cid cusub oo aanu soo saarin. waa ka wada dhageysaneydeen warkii uu ugu warramo ugu khudbadeeyay dadkiisa inay rabaan inay soo cumaamadaan qof cusub oo ay iyagu wataan oo Kenya ay mas'uul ka tahay oo iyaga u adeega oo ay meesha dhigteen. waxayna ogeyn William Ruto iyo dadka la ra'yiga ah iyo dadka fikirkiisa qaba ee dawladaha jaarka qaarkood noqon kara ama ahiba in Soomaaliya ay ka gudubtay Soomaaliduna ka gudubtay waqtigii mas'uul Soomaaliyeed wadan yeelan jiray ku shaqayn jiray fikirka dalka. waxa ay marxaati ka wada ahaydeen xildhibaanada sharafta leh ee Soomaaliyeedna ay beeniyeen damicii guracanaa ee TPLF 4 sanadood ka hor waxay yiraahdeen magaaladan Muqdisho ah magaaladan Xamar ah beledkan Soomaaliya ah wuxuu baa madaxweyne ka noqon kara ciddaasina mabageydo madaxweynena kama noqon karto. xildhibaanada sharafta leh ee Soomaaliyeed oo ciddii ay u tirinayeen koow ka tahay hormoodna ka tahay waxay yiraahdeen been baad sheegteen. qof kastoo Soomaali waa muwaadin Soomaaliyeed xaq baan u leeyahay inuu madaxweyne noqdo. aragtidii TPLF ee qaldanaydna way beeniyeen soo ma aha soo marxaati kamayna wada ahayn soo xildhibaanada halkan jooga ma ahayn kuwii beeniyay ee yiri Soomaalinimo iyo codkayaga si xor ah inaanu u dhibno ayaanu diyaar u nahay. sidoo kale Maadi Maxamed Guuleed Qadar ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa ugu digay dawladaha dariska ah Soomaaliya sida Kenya, Ethiopia iyo wadamada kale haddii aysan joojinin fargelinta ay ku hayaan siyaasadda Soomaaliya inay ku fashilmi doonaan. dawlad kastoo ay soo fargelisaa walaalayaal way ku khasaari doontaa damacooda guracna waa lumi doonaa ama ha noqoto Kenya ama ha noqoto Ethiopia ama ha noqoto dal kale oo kasta. Soomaalidu milkihii sharafkii wadaniyadii iyo Soomaalinimadii ay lahaayeen ayay u holladeen wadadii saxda ahayd baana cagta saareen. sunno cusub oo siyaasadeedna waa bilowday. waxaan idin sheegayaa sunnaha cusub ee siyaasadeed ee maanta jira hiyiga cusub aragtida u dhaxaysa siyaasiga han kale iyo siyaasiga danta leh danleyda iyo hanleyda. waxaan idin sheegayaa tusaale waa baraarugeen xildhibaanadii Soomaaliyeed waxay yiraahdeen aan qiimeeyno banaanka markaynu joogno qofka dadkeenan hagi kara inoo talin kara inoo xukumi kara cadaalad aynu bidayno dalkana hogaamin kara. waxa uu soo hadal qaaday sidoo kale Maadi Maxamed Guuleed Qadar ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka arrimaha dhaqanka waa siyaasadda Soomaaliya oo 4 sanaba mar doorasho ay ka dhacdo Soomaaliya isagoona sheegay in taasi laga gudbay haddana dawladda Soomaaliya ay diyaar u tahay in wadanka ay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay. waxaan doonayaa laba shay oo dhaqanka siyaasadda ee ah 4 sanadoodba mar hal ka rogo oo laga saaro hal la bedelo haddana ku kale hal la cumaamato in laga soo guuray maantana loo guuray Soomaalinimo yaa wax ina tari kara yaa wax inoo qaban kara halgeenu gaari karnaa sidee baynu hore ugu socon karnaa taa inagoo ka guulayna Soomaali haddaan nahay waxaynu u baahan nahay in aynu doorasho ka shaqeyno. doorashadii lagu heshiiyay waa diyaar gudiyadii waa diyaar doorasha loo dhaqaaqayaa doorasha loo dareerayaa muwaadin kasta oo Soomaaliyeed oo hunguri kaga jira xilkanna in tartan furan oo xor ah uu kaga qayb qaato tartan furan oo xor ah uu ku tartamo. hadalka ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa imaanaya xilli magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya uu ka socdo shir u dhaxeeya kooxaha mucaaradka iyo madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya kuwaas oo ka hadlaya xaaladda dalka iyo doorashooyinka la filayo in dalku ay ka dhacaan.